maamulka iskuulka hoose dhexe sare ee hanti wadaag ayaa ka warbixiyay howlo dayactir iyo dib u dhis oo ka soconaya iskuulka taasi oo ay fulinayso wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya iyadoo maamulka iskuulka uu wada dadaalo uu koorgalayo sida ay u socoto howlaha dib u dhiska iyo dayactirka ka soconaya iskuulka hoose dhexe sare ee hanti wadaag maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee hanti wadaag Yaxya Faarax Jaamac ayaa ka hadlay sida ay u socoto howlahan dayactirka iyo dib u dhiska ee ka soconaya iskuulka waxaan maanta noo soo bilaabay shalay dayactirkii iskuulka lagu sameeyay dugsiga lagu sameeyay dugsiga waxa laga dayactiray qaybo badan oo saqafka ah oo biyo ka soo deynayay iyo qaybo badan oo dayactir lagu sameeyay qaybaha musqulaha iyo qaybaha iskuulka ku jajaban yahay oo dayactir lagu sameeyay dayactirkan socdo waxa uu sameeyay iskuulka uu wado inuu hirgelinayo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare aniga oo ka hadlayo maamulka iyo macallimiinta iyo guddiga waalidiinta waxbarashada iyo dugsiga afka oo ku hadlayo waxaan mar labaad u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo si hagar la'aan ah waxyaalaha horumarinta waxbarashada u leh ama hortaminta waxbarashada u leh mar walba garab nagu siiso taasi oo aan rabnay in ubadka Soomaaliyeed ay si wanaagsan ugu faa'iideystaan oo ay waxbarashada dalka ay sare ugu kacdo runtii iskuulkan waa iskuul weyn ee degmada Warta ka yaalo waana iskuul ardayda ay ku dhigtaan si taclaan bilaash ay ku dhigtaan ardayda dugsiga dhigato waxay gaaraysaa cadadeeda ilaa 2136 arday ay gaarayso iskuul jiro labada heer dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare oo labada gelina oo labada waqti dhigto sidaas ay tahay iskuulku wuxuu hayaa arday aad u tiro badan xalayna marka anagu u mahadcelinayno sida quruxda badan iyo wanaagga ay noogu samayso wasaaradda waxbarashada dayactirada sidaan oo kale oo iskuulka muujinaya bilicdiisa iyo quruxdiisa iyo horumarkiisa waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo arrinkan door isku saartay sida ay ku horumarin lahayd iskuulada dawladda oo ay ka dhigi lahayd goob aad u wanaagsan oo qurux badan oo bulshadana intooda badan ay soo aadi lahaayeen si u joodaba waxaan noo soo lahda dayactirkii qaybihii ugu muhiimsanaa oo hadda annaga ay wasaaradda waxbarashada noo qabanaysay annagoo ka maamul ahaana waxaan gudanaynay waajibkeena ahaa inaan kor joogteeno oo howsha si u socotay wixii noola qabanayo aan fiirino meeshii u baahan in la qabto inaan meeshaan waxbay u baahantay in laga qabto inaan kor joogteeno sidaan arkaysay shaqaaliga ku jira inaan fiirino waxyaalaha ciladaha ka taagan iyo ismihii laamiyadiga noo soo qaybihiis kale noo socdo dayactir noo socdo iyo qaybo laamiyada laga bilayo intaba xalayna marka wasaaradda waxbarashada waa mahadsan tahay maamulka iskuulka hoose dhexe sare ee hanti wadaag ayaa muddooyinkanba waday dadaalo uu ku doonayo sidii uu ku horumarin lahaa iskuulka hoose dhexe sare ee hanti wadaag iyo howlaha waxbarashada ee ka soconaya iskuulka Muuse Cismaan Abtow warbaahinta qaranka Muqdisho.